waxaan jeclaan lahaa inaan ku celceliyo qayladhaankayga ku saabsan warbixinta taas oo ah Maraykanku inuu diyaarinayo inuu Qudus u aqoonsado caasimadda Israa'iil. Qudus mudane Trump, Qudus waa diilinta guduudan ee Islaamka. inta dhaawaca dadka Falastiin dhiigga laga daadinayo uu sii soconayo oo xadgudubyada xuquuqda silcinta iyo weerarrada ay sii socdaan in la qaado tallaabadan lagu taageerayo Israa'iil. arrintani keliya xadgudubku ma aha heshiisyada caalamiga laakiin waxay kicinaysaa dareenka iyo shucuurta insaaniyadda. haddaannu nahay madaxda ururada iskaashiga Islaamka, dhibaatadan si go'aan cad ah baannu dabagal ugu samayn doonnaa. haddiiba tallaabada noocana ay qaadeen, waxaannu isugu imaan doonnaa shir madaxda ururada iskaashiga Islaamka magaalada Istanbul 5 casho ilaa 10 casho gudahood. arrintaana waxaan ka qaadi doonnaa tallaabo dheeraada. waxaan abaabuli doonnaa dhammaan dalalka Islaamka, waxaannuna dhigi doonnaa dacdo aad u weyn. waanu mahad celinayaa hogaamiyayaasha kulanka, waayo dhacdadani maaha mid caadi ah. dowladda Maraykanku ma waxay weyday shaqo kale ay qabsato? daacish miyay ka soo dhammaadeen? ma intanuunbaa u hadhsanayd? Netanyahu waxa uu awoodi la'yahay inuu soo afjaro dhibaatooyinka ka dhacaya gudaha Israa'iil. si aan gabasho lahayn ayaanu sii wadi doonnaa dagaalkeenna ku aadan arrintan, xataa haddii ayna gaadhsiinayso inaan xiriirrada diblomaasiyadeed u jarno Israa'iil.